kulankan uu sida rasmiga madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seelic uu la qaatay cuqaashi waxgaradka iyo aqoon-yahanka iyo dhalinyarada ganacsatada iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa uu nuxurkiisu ahaa xog waraysi ku saabsan xaaladda guud ee gobolka Togdheer iyadoo halkaasina bulshada reer Burco ay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ugu soo bandhigeen duruufaha gaarka ah ee ku xindaaman gobolkan sidoo kalena ay ugu tahniyadeeyeen xukuumadda Soomaaliland horumarinta tirada badan ee ka qabatay gobolka Togdheer intaasi kadib duqa degmada Burco Maxamed Buraad iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji oo hadalka la wareegay ayaa waxa ay taakiidiyeen dhawaaqa ka soo yeeray dadka reer Burco ay tilmaameen inay la qabaan waxaana ay dadka ka codsadeen laftigoodu inay kala shaqeeyaan adkeynta nabadgelyada iyo geedi socodka wax kasta oo lagu mideynayo gobolka Togdheer horumarintiisa ganacsigiisa iyo kaabayaashiisa bulshada madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigan waxaan ku soo dhaweynaa guri barwaaqo haddii maqashaan burca lagu shiri doonaayo warda iyaga laftigooda ma ictiqaadsan burca ku shiri doontaa shir ku qaban doontaan haynagu xasuusnina aynin maskaxda ugu yar binaayo reer burca oo guriga gubi jiray ayaa reer soo maray waasay gabadhi waxay tiri nawaa kan hebeele anu guriga laga gubay nawaa xasuusan dabka keenay guud horta anu xasuusnina idin kale tan burca ma kuma soo socdaan waxaynu xasuusnina nin madaxweyne ku-xigeen kulli hadal badan halkan la yaalo dareenkaydu waa kii odayaasheen iyo labaynteenu ku hadleen firkii wixii ay qabaana waa la qabnaa xagga amniga guud ahaan waxaan dadweynaha odayaasha ku guulaabinayaa amnigeedu maanta uu ugu fiican yahay haddana mandaqada aynu ku noolahay aad baa uga dharagsantihiin waxa ka taagan koono kastood ka egtaba nabadgelyada faraha badan waa lagu jabaa waxaynu u baahannahay in foojignaan dheer midbay intaba la yeesho wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isaguna tusaalayaal tiro badan oo soo qaatay waxay ahaayeen kuwo uu ku cadeynayo waxqabadka ay xukuumadda Soomaaliland ee uu garwadeynka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud ay dalkan ka qabatay waxaanu ku dagaalanaa oo kaliya waxa weeye waxqabad iyo horumar annagu kuma dagaalano hadal iyo ficiltan kale iyo caytan waxaanu ku dagaalanaa waxaanu bulshada u qabanay bulshada ayaana markhaati noo ah waxaanu qabanay iyagana markhaatiga noo kala furaya ciidaanu markaa siyaasadda isku hayno wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Dr. Cabdi Daahir Cali ayaa isaguna waxa uu baaq u diray isla markaana uu la hadlay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo uu uga digay inaanay ku milmin dad uu ku sheegay wasiirku Murandoon isagoo xisbiyadana ku sheegay inay yihiin kuwa madax doona loona baahan yahay dhowr sanaan imaka barigi aanu aan kulmiyahayn siyaasiyiintu had iyo gooraale waa iska jirtaayo waa dabeecadda dhaqanka waxa jira Murandoon iyo madaxdoon mar walba way jira Murandoon iyo madaxdoon marka anagu mararka qaarkood markaan kulmiyana soo xanaaqi jirnay aan madaxweyne Silaayo u tagi jiray soo markaa gudoomiyaha oo waasay meeshiiba arigiiba wacay kale laga qabsay isaga marka dan biriga noo xili jiray waa wuxuu jiray war madaxweyne doonayay murankeeno inuu kaysana kan meesha qabsanay haddaan halkaas aanan kulli wax fara badan baa laftayda beriga aan taraari lahayn waan jiraa madaxdoonkaas jira moogta qolooyinkan fara badana madashu badana wax u badan yihiin qolada madashu Murandoon bay u badan yihiin laakiin waxa kula soo galgashay qoladii xisbiyada madaxdoonka qolada xisbiyada madaxdoonka waxaan leeyahay Murandoonka iska ilaaliya ilaa iyagu waxa weeyaan madax dooni maayaan marka waxay ninkii madax dooni waa muranka yareeya taa waxaan leenahay runtii waan filayaa insha Allah ta'ala inaynu ka shaqeyno haddii roob burcanahay isku duubnida ka shaqeyno madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seelic oo kulankan soo afjaray ayaa waxa uu ka hadlay laba qodob waa mid ka hore in loo baahan yahay in la dardar geliyo isla markaana la soo dhaweeyo shirkadaha sahminta shidaalka ee xukuumadda Soomaaliland ee heshiiska la gashay isagoo qodobkaasi ka sii hadlaya shidaalka waxa uu madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland tilmaamay in xukuumadda Soomaaliland ay dejinayso qorshayaashii iyo shuruucdii lagu hagi lahaa hawlgallada ay dhawaan bilaabi doonaan shirkadaha sahminta shidaalku taabahaniga rabaa oo la garab madaxweyne idinkuna inaad talaabada qaybtiina qaataan wixii hore naga dhacay ee hadal xun ama baxayay ama cid hadlaysay horta waxa waataan khayraadka dalka jira dawladda ka masuula inaan qaran noqono loo baahanay haddii mar walba qabiilnimo soo taagna qaranimada noqon mayno
qaarna waynu doonaynaa ummadda caalamka in la ictiraafto waynu rabnaa haddaan la soo taagnano miidiyahana annagoo reer hebela waxaa yeeli mayno nasiib darabta inaga xuma jirto inaynu qaran noqonaynu rabnaa hantida maaragtay dhulka ku duugan hadday ku taallo looyacdo iyo hadday laasqora ku taallo waa hanti qaran weyn qarankaa mas-uuliyadda leh marka inaynu isku sheegno shacabka waxa noqdo shacab qarankiisa adeeca oo wixii dadka ugu taliya maarta sameeya wixii goldoloola ay nagu sheegay xagga ama security-ga ay ka hadleena waan ka wada hadalay runtii meel fiican waa isla dhignay iyaga iyo kuwii kale maarta aan heshiisyo la galay waxaan rajaynaynaa inay degdeg sanadka cusub oo bilaabaan kuleeyahayo waxay Soomaalidu tahdaa safar laba salaam calaykum bacda Soomaalidu maamada war annagoo meel jeedno dee horumarkii hiigsanayna uma maalmo heblaay barkad baa la isku qabsaday beer baa la isku qabsaday reer baa istilay inta qalindaarada nagu samaysaa shacabka reer Soomaaliya lagu sameeyo yaa badan waxaan leedahay odayaashii halkan tihiin waa in dowladda iyadoo meel ku foogan haddii mar walba dabadeedii wax ka dhacaan dhib baa imanaysa idinka u dhiini waa hawshaa nagala gurmad gashaan oo waxaa yara hoose maalin walba reer hebel iyo dhul baasoo dhulka ilaahay baa leh binaadamku wuxuu ku leeyahay intuu ka manafaacsado ku leeyahay mushkiladdeena waxay noqotay inaan dhulkii unan kala sheegano reeraha ilaahay ummadda dhulka waa dhigay waa qabaa'il haddaan ahaan jirna qabaa'il qaran baan noqonay qaranimo wax ku noqonaynaa dee dhulka qarankaa leh qofkuna waxa uu rabo inuu qaranka weydiisto weyn hadduu tuulo samaysanayo inuu qaranka weydiiyo weyn hadduu barkad beer samaysanayo inuu qaranka weydiisto weyn inuu qofku dee tallaabada iska qaado oo wax samaysto taas waa ta keenaysaa walaalkiisa kale markaa la deganaa markuu da sharci darro un wax ugu dhaqaaqo inuu intii kalena ay maartay walaalkiisa kale ku xanaaqo conflict keenaysa dibadda dad aynaan u baahnayn naga dhintaan oo qiimalayna waa markii ugu horeeyay kulan noocan oo kale ah uu madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland uu la qaato bulshada kala duwan ee gobolka Togdheer waa Cabdi Sataar Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland